nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino akhyaaray sidee la yahay reer kalamaanow orda wadooyinka soo fiiri sida la yahay aad arkaysida waar wadooyinka horta hayla aadina maanta wax la yaab laan arkay haye waayahay isbitaalada tag sida la yahay aad aragtida waryaa tanoo kala ark cimrigaagoo raaga geel dhalaayuu ku tusaabaan maqli jiraye maanta cimrigayga raagay abwaan indha geelle oo lugaynaya ayuu i tusay war abwaan indha geelle abwaan caam oo lugorada waylanki eri jiri way galaydii ka baxda qoryoolaya gaalka ayaa geeya tolow yaa isaga goosha kulley kalama guurtaan war ha u gafin oo gabaga hadaqringabay ma taqaanidi allow yaa isgarabsada kolley kalama guurtaan buu yidhi abwaanku adiina mayba hilmaantay war abwaanku xilliga uu sheegayaa waa intaan waddooyinka la xirin markuu lahaa hobyo godan iyo doolow allow yaa isaga goosha hadda xamaranba la isaga gooshi karin marka indhageella waa qabaar mooge hadalkiisa naga dhaaf war abwaanka markii waddooyinka la xiray miyuu gaari gatay war niman yahown gallaydii ka baxday qoryoolayaa gaalkacyo geeyaan ku soo xusuustaye foolxumadii ka dhacday gaalkacyo bal iiga warrama xaggay maraysaa war adeerow calaalxumadeeda naga daa war dembiilayaashii waa la daba joogaa madaxweyne xaafna wuxuu yidhi waa la soo qabtay maa sugsid xaggee u degdegaysaa ilaa hatili roog walmasiinka hayno warkiin maybaanagya waa la fashiliyey tiisin eri jarteen warnimayo waxaan ka baqayaa baaritaanadii guddiyada loo saaray arrintii gaalkacyo inay ku dhammaato dadkii falkaasi geystay madaxa loogu jiray haddii la yidhaha dadkaasi waa dad waalan waa xaqiiqo sababtoo ah dad fayoobay falkaasoo kale maba geystaan war dembe mar hore isinka dhaga ma jirtan awaalanyin mala siinka weelaa mise waalan adeeg mise fiiha wadeen dadkaasay maylifaday inoo maxkamata saartanoo birtilika asala aryaada waadinka gaalkacyo ku meeraysanaye dhibkii ka dambeeyey oo qaraxii shalay sayidka ka dhacay dadkii ku baaba'ay iyo kuwa berri dhimanaya maad ka hadashaan war muqdisho waxaa ka dhinta lama xisaabiyo war hadda kadam waxaan qabaa qaraxyada dhacaya hal dhinacay ku badan yihiin in la qeybiyo 4.5 laga dhiga war naga tag wax la wada leeyahay 4.5 lagu qaybsadaaye qaraxan lama wada laha war reer qowdhan baa qaraxa soo abaabule ma waanan qayb laga siinin horta war adeero somalilan waa qaran sidiisa u taagane qaraxa xaggan gudhuuda ayuu xisaabsan yaadeen annaga looma xisaabsana warnimayo horta anu waxaan la yaabanahay ayaan markii qaraxyada laga nasto miisaaniyadda dawladdu maxay isku dhintaa horta war ma hayside labada dhanba hal meel bay wax uga soo dhacaan warnimayo waayaha markii qarax dhaco koow cidda ciidanka amniga beegsadaan waxay noqdeen saxaafadda marka waxaan la yaabanahay meeshii qaraxa laga hortegi lahaa saxaafadda laga hortagaa maxaa looga hortegi waayey haddii qaraxa wax laga qaban waayey khasaarahu geystay in laga qariyo dadka soo maaha waxaan arki jiray dawladii dhibaatada iyo khasaaraha uu cadowgeeda geysto iyada oo ku cambaaraynaysay buunbuulin jirtay oo xoog u soo bandhigi jirtay marka waxaan la yaabanahay dhibaato uu cadaawa geystay in la qariyo yaa loogu daraynayaa horta war ma adigaan maqal midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war mar hore bay ahayd markii wasiir goodax uu lahaa xildhibaanada qaar baa shabaab ah war taliyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir qaarkood oo ugu horreeya kii shalay wariyaasha xabadeeyey shabaab ay ka yimaadeen cimaamad gaduudan buu wadan jiray war imaamadiyeeda ee magaaja magoradaasan anisiin sheegay oo dhegansada kam qatalta iyo leere war xala waa tii la yidhi madaxweynuhu wuxuu la ballansan yahay labada guddoomiye ee labada gol ee baarlamaanka maxaa ka soo baxay ma kulmeen ma kala tageen ma heshii waayeen warniyo war ma hayside madaxweynahaygii somalilan muuse bixi wuxuu furay imtixaanaadkii dugsiyada sare war adigaan war hayne mooshinaa laga keena muuse bixi war adeer mooshin aan guurtidu ogayn somalilan kama socdo war fiqi iyo jeesow miyaa hargeysa tagay waa maxay mooshinkaad sheegaysa war horta mooshinkii muudday laga keenay xaguu ku dambeeyey war waxay maraysaa xarfaanay aan kala qallayno warnimayo war ma haysaane maayarka magaalada hargeysa nin baa maxkamadda ka dacweeyey wuxuuna ku dacweeyey facebookiisuu balookiga saaruu dhah wuxuuna yidhi waxaan xaq u leeyahay
waxa uu facebookiisa soo geliyey inaan ogaado maadaama uu madaxdaydii yahay hadda ka horre wasiirka maaliyadda bayle ayaa wasiiru dowlaha maaliyadda jubbaland baloog ka saaray twitterkiisa donald trumpna dad badan oo uu sidaasoo kaleeta baloog u saaray ayaa maxkamadda ka dacwooday waanay ka gar heleen war heedha war ma haysaane facebook in ka badan 500 oo qof oo Soomaaliya maanta laga wada xidhay nabad iyo nolol baa baloog ka saartayna waa la leeyahay laakiin facebook wuxuu soo qoray uma qalantid qof walba sidaas uu soo qoray oo kaalay nabad iyo nolol ma wadooyinkay moodeen markay facebook xirxirayaan war nabad iyo nolol qarashkii facebook baxay ma yareerta war ma haysiine baladweynaha ka soo kuday qofdi balaaran oo hirshabeellahana maanta waa yimideen araad soo kudida koombowdaada ma wadataa ama kii soo kaciisi maxaad ii soo ciyi wayse khilaafkii dabageed iyo waare weli xal looma helin macawiisle iyo shabaabna waa dirireen hadda waxaa la yidhi halkan kenyaanti shabaaba ayaa lagu dilay warni waalan baa tahay xuduuddan kenya isku haysanaaye hiiraan iyo halgan iskuma haysano war kenya waxaan isku haysannaa waa badda ee dhulkaba maaha war adeera war ma haysaane burco balaayiya baas baa ka dhacay markaa nin sarkaal ah oo booliiska ah ayaa dhagax lagu dilay oo kow lagaga siiyey war heedha maxaa loo rajmiyey maxadgudub buu sameeyey warin ma adeerayaalow dadka booliiska dhagaxa ku dilaya xana loo waco booliiskeennu dhagaxda ujeedadka dhigdhigaha naga qaadeen war arrinka ninkaa booliiskaa lagu dilay sarkaalka qoladan jaarka nahay baa ka dambaysay war bilaayadii baaskada meelika hayd un haniinka safariidoy haddii un waldilaan haan bilaantu kufsadeen rajmii fadnay war ma haysiina kismaayo nin shalay la doortay ayaa xalay xabsiga loo dhaadhiciyey war ma alsayid axmed madoobu ka soo horjeesta waan xarig weystalaan wixii ka soo horjeestaba war waxaas waa malmaluuqii nin yardo nagala taga wixii farmaajo ka soo horjeestaba facebook in laga xiro waa astaahilaan war adinka dhanaan astaahila in laydin xirxiro gebigiin bay hordaha naga tag asbax war sharciga ilaalsha war ba ilaahay ha idin naxariiste